raxiim guud ahaan horta marka laga hadlayo in dalka laga cirib tiro gudniinka gabdhaha nooc kasta oo ahaadaba marka loo hadlayo heer qaran waxaa ka mas'uul ah dawladda federaalka oo markaasi mandatekeeda ama hawsheedii ay u xil saaratay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka heer federaal ay tahay wasaaradda haweenka doorka hadda kaga qorsheysan sidii dalka looga baabi'in lahaa gudniinka waa priority-ga koowaad ay u tahay wasiirka haweenka run ahaantii qorshayaal badan ayaa uga degsan wasaaradda oo ay ka mid tahay in marka horeete shuruucda iyo siyaasadaha lagu baabi'inayo gudniinka ay dawladda ansixiso oo heer fiican ay marayso guud ahaanba qabyo qoraaladii ugu dambeeyay dhanka sharciga marka laga hadlayo oo hadda diyaar yahay marka la sameeyana kulan guud oo guud ahaan bulshada heer gobol iyo ilaa heer federaal la gaarsiiyo kadibna dawladda la horgeeyo oo markaasi la ansixiyo waxaa jiro dadaalo wacyigelin ah oo aan ku taageerayno ururada bulshada rayidka in ay qayb ka qaataan maadaama dawladda ay siyaasadda iyo shuruucda ay samayso iyagana ay yihiin dadka markaasi bulshada u fududeynayo howlaha jira doorkii ay ka ciyaari lahaayeen arrinta wacyigelinta si heer qaran ah ayay markaasi dawladda gaar ahaan wasaaradda oo u qaabilsan arrimahan ah ayay markaasi u maamuusaysaa howlaha ciribtirka iyo baabi'inta guud ahaan gudniinka gabdhaha oo isagu ah mid dhibaatooyin heer maskaxeed iyo heer jireedba ku reebta haweenka Soomaaliyeed ahna wax la xiriira arrin la xiriirta dhaqanka oo muddo fog laga isticmaalayay dalka